Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahay soo dhawaada meel kasta aad joogtaan, soo dhawaada channelka Surbiyaan. Maanta waxaan inii wada alaabtan quruxda badan aad ujeediin sidii aan u sameeyay. Aan rabaa inaan isla aragno haddii Ilaahay yiraahdo chicken waaye. Chicken kana saan u sameeyay la arag waa kanaa. Chicken saana usoo jarjaraa si yar oo dhuudhuuban. Aan usoo jarjaraa si alaala saa jeceshaa u jarjaran kartaa. Laakiin saana usoo jarjaraa markaan saan usoo wada jarjaro oo aan saan usoo wada wax yar oo mataqaana qashqashkii wixii leeyahay iska jarjaraya aad kulli qof walba u garanaa sidii mataqaana oo u nadiifsan lahaa ama u waxaysan lahaa. Laakiin saana usoo dhameynaa saana usoo jarjaraa sida dhuudhuufka dhaadheerka usoo jarjaraya haddii Ilaahay yiraahdo. Kadib alaabtaan aan ku darsan alaabta xawaajiyada waxa loogu talagalay chickenka in la mariyo wax kasta way wadataa carfisayaasheedii filfisheedii everything wadataa wax kale aan ku darayo malahan. Alaabtaas kaliya aan marinayaa marka easy waayaan ku dhahay soo ordo dhaqso. 5 daqiiqo halkan waxaan ku haystaa xabad ukun ah iyo caano yar isku soo qastay. Chickenka marka hore inaad soo qoysid waayo wixii aad rabtid ku soo qoo. Marka aniga ukun iyo caano aan isku soo qastay kadib caanaha iyo ukuntan saan soo wada dhex gelgelinayaa. Markaan dhex geliyana waxaan sameynayaa saxankaan alaabta iigu jirtay oo carfisayaasha ahayd baa marinaa. Qofkii aan alaabtaan haysanin dadka wadamadan aan joogo ila joogo kale way heli karaan shabaabka dhan wuu yaalaa. Laakiin dadkii wadankeena oo kale hadii ay helaynin waxa sameeysaa daqiiqda ama burka waxaad ku qasanaysaa filfishaada iyo cusbadaada iyo mataqaana xawaajiyeer iyo wax yar kadibna saana mataqaana u marmarinaysaa saasa u duubanaysaa hadhowna. Marka waa kana saana u marmarnaa kulli saana soo wada ani markaan saan u marmariyo hadii Ilaahay yiraahdo waxaan dhigayaa muddo adiga 30 daqiiqo camal waxaan jeclahay markaan wax mariyo inaan mataqaana aan cambaar dhigo wixii dhanaankii iyo mataqaana wixii aan marisay sidii mataqaana ay si fiican waxa u dhex galaan horena waa ka duban kartaa inta marisay hore waa ka duban kartaa laakiin waxa iska fiican inuu waxa markaa wax marisid inaa muddo yar oo kooban aad mataqaana ku sugtid sidii ay si fiican ay waxaas ay dhexda uga galaan. Marka saana ku soo dhameynaa insha Allah saana kulli wada marmarina haddii Ilaahay yiraahdo saana soo wada marmarina kadib waa ku soo dhameyn doonaa waa isla arkaynaa bal sidii oo mataqaana oo noqdo haddii Ilaahay yiraahdo waa kaas wali waa wada insha Allah. Hadda waa soo dhameeyay chickenkii saana ku soo dhameeyay waa kana laba saxan ka soo dhigay masha Allah tabarakallah wanasiino siyaad intaan haysano si saana ku soo sameeyay waan dhigay cabaar kadib markii waa cabaar saa in sheego aan dhigaba kadib waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan mataqaana dubo hal dabkii saliid soo saartay muddo 30 daqiiqo kadib saliid aad inay u karkarto lama rabo meel dhexaad dabkana inaa mataqaana oo low ahaado waa hayna inuu ahaado ma la rabo oo aad mataqaana u dilacan yahay meel dhexe lambar dhexe inaad geysid oo dab yar oo tartiib ah mataqaana aad ku bislaysid haddii Ilaahay yiraahdo haddii kale waxa korka aad ka marsay bislaana chicken inside qaylinka ahaana ama dhexda marka chickenka saliidiisa always aad looma kululeeyo dhexdhexaada laga dhigaa temperature yar oo mataqaana uu ku kari karo oo mataqaana uu dhexda iyo si fiican mataqaana uu bislaadkiisa isu gaaro waa kaasa saana ugu soo wada guraaya haddii Ilaahay yiraahdo saliida insha Allah cabaar ku jiraaya cabaar kadib markuu ku jiro aan iska soo noqonaynaa insha Allah. waa kana hadda chickenka wuu bislaaday waa ka guranaa insha Allah saa quruxda badan oo noqdo kaale iska arag chicken banaan ma dooninay sidaan ku dhahdaa chickenkan baratid wuxuu dhamayaa kii mataqaana dukaamada ama suuqyada ka soo gadanaynay uu dhamayaa chickenkan masha Allah tabarakallah waa alaabta aamriyay caadi ma ahan ku dhahay waxa ka dhigaysa ka banaanka kale wuxuu la dhadhan noqonayo waxa keenay alaabta aamriyay badanaa waxa isticmaala chicken jabsilayaasha meesha aan joogo aadka ugu badan baa isticmaala waa waxay isticmaalaan ingredient-ka ay isticmaalaan waaye iyaga qudhooda daawadiisna waa ka gadan kartaa shopkana waa ka soo helay insha Allah. Marka waa kana saana ku soo dhameeyay halkaas kii ugu horeeyay kii labaad hadda ku ridanaya insha Allah isagana cabaar ku jiri doona haddii Ilaahay yiraahdo saana ku soo wada dadabaya markii aan soo wada dubo oo mataqaana aan isku soo wada noqonayna insha Allah. saasan ku wadana insha Allah saasan ugu soo wada gurguraya hadda ay soo fiican waa kana masha Allah tabarakallah sidii hore kale ku isticmaalay ana isticmaalo masha Allah waaye alaabtan soo saaraysa ana halkana ana soo dhigtay inta ala la ku saartay aan kaliya ma ahan insha Allah laga hawaan ka sameeyo waxaan ku dhigtaa maanta kan ay baan la soo aan mataqaana aan ku sameeyay fiican alaabtan masha Allah marka waa ka saahe chickenka waa kana dhamaa waa soo dhameeyay
saan u bislaaday dhexdiisa dhan waxaa waa biseel waaye marka u maleynaa chicken inuuna bislaanaynin oo kale ka shakiin wuu bislaanayaa adiga dabka haddii mataqaanaa aad macnaha uga dhigtay si fiican marka waa kana saana kusoo dhamay saana kusoo diyaarsada maasha Allah tabaarakallah waaye ilaa intaan haysana si anagana noo siiyaadi haddii alaabtan aad ka heshay soo tijaabi adiguna la wadaag asxaabtaada aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aana daawanaysiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh